wiilkaas leena la dagnay wuu ekayne dad kasta hindi igu jireen soo hindiya li mareen jiray markii soo magaaladeen Soomaali ku soo badatay ee arkay war ninkan dadkiisu waaye ba Soomaali waaye airportkii ku bilaabatay ilaa maantana way socotaa ilaa maantana way socotaa laakiin waa la qabsaday taas ninkan intan uu igu qoslooyaa war caliyo ciido cunay wiligiis xabada ma arkin anigana waa dhimanooya ku jiraan xabada ay gaartay wuxuu la war adiga wiiftale ku gaartay soco igu dhahoya war see hospital hali geeyo waxa li qabto reerkii la degnaay abajaajka la saaray isla markiiga baxay because waxay dhahay wiilashii magaalada soo gali doona waa lagu raadinaa hadda basiiba kulanta waxaan daawadayaal ku soo dhawaada oo media maanta waxa ku suganahay magaalada Hobyo waxa ila jooga cali cabdiraxmaan sabri oo ah nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku noolaa muddo ka badan 22 sano asagoo yar ayaa dalka laga waday hadda ayuu ku soo laabtay dalka muddo dhow sidoo kale cali dhanka hooyadiis waa Eritrean marka sheekooyin badan ayuu cali noo hayaa oo ku saabsan noloshiisa iyo intuu qurbaha joogay iyo markii uu qurbaha ka soo laabtay intaba hadda waxaan ku kulanay magaalada Hobyo oo uu muddooyinka dambe ku sugnaa cali marka ku soo dhawaa oo media marka hore waxaad warbixin yar naga siisaa markii dalka aad ka tageyseen gormay ahayd imisa jiraas ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdi awoowe aad iyo aad u mahadsan tahay inay soo dhaweysay muuqaalkan fursad u helnay inaan ka sheekeeyo nolosheedii oo safarkeygii ilaa ka tagay ilaa ku soo laabtay dalkii gaar ahaan Hobyo ani waxa la dhahaa cali cabdiraxmaan maxamed sabriye galaal waxaa jira 41 sano waxaa ku dhashtay deegaanka hodan xamar muqdisho anigoo 8 jir 7 jir intaas amal aliga waday dalkii waxaa ligu waday aabaheygii ku geeriyooday xamar ya aabaa dhintay 89 dagaal iyo bilaabanayay ka socday dalkii soo xoogaa xaaladda nabadiisi amnigiisa aad ma u fiicneen ya intaas ka hor Soomaaliya waxa lagu cid jiray Switzerland of Africa dalka ugu qurux badan ugu dhaqaale badneed oo ahay laakiin ugu dhamaadkeed 90kii dagaalaan ugu bilowday waa dad badan kacay anaka waxa aadnay dal la dhahay Sweden aan lagu soo dhaweeyay gaar ahaan magaalada Stockholm la dhaho caasimadeed adeero oo aaba la dhashtay Talyaaniga waxa la jooga aaba adeerkeygii oo aadan maxamed sabriye la dhaho BBC wariyaha BBC Roma fadhiisan jiray laakiin BBC Soomaaliya ciyaaraha BBC ugu dambayskiis ciyaaro ka sheekeyn jiray yes oo ka hadli jiray aad iyo aad xasuustaa adeerkaas la joogi aabana markuu dhimanayay dad badan ay imaaday aabana wuxuu ahaa duuliyaha sare Somali Airlines oo dad badan aqaan asxaabo badan oo lahaa aabo dad kastana uu soo dhaweysan jiray sida ligaga sheekay taariikh ani 8 jir ahay nolosha aabo saas ma aqoon aabo aragtidiisa iyo codkiisa waxa soo xasuustaa laakiin inta kale noloshiisa duuliye sare ahaa Somali Airlines dalkii Sweden aa tagnay waa dareemi kartaa wiil yar dal cusub la geenayo asxaabtiis ciyaalka xaafadihii dhan laga waday kubad isla ciyaari jireen dugsi isla dhigin jireen dad cadaan oo wiligiis arkeen noloshay dad cadaan ma arkeen barafiskii loo qabow iyo cimilaha dalkaas uu isku cimilo ma nahan maadaama ay saas tahay waxay naga qaadatay waqti dheer in la qabsano dalkaas hooyana waa hooyo qof wax soo bartay hooyaday waa Eritrean ya oo laakiin waxay ku dhashatay Muqdisho ayadana ya awooweygii ilaa naxariista cali xumatina la dhihi jiray waa xasuusta oo ha
waxaa soo korisay maamo oo Soomaali suuqa bakaarahna uu ka shaqayn jiray pharmacist oo ahay awoowe pharmacist oo ahay oo caan ahay oo daawooyinka dibadda ka keeni jiray oo xamar suuqa daawada loo bixiyay anakoo Sweden joogno oo hooyo go'aan gaartay maadaama qof wax soo barto hooyo ahayd reer magaalo ahayd soo waxay go'aansatay inaan xaafad oo Rinkibi la dhaha degnay kadibna waxaan nalgay meel oo qaxootiga la isku keeno xarun qaxooti kadibna oo la sii raro meelal tuulooyin loo wado hooyana tuulooyin ay dooratay tuuladii aadnay Soomaali dhanba ma degneen aniga iyo walaalahay bas Soomaali ka ahayn iyo hal wiil kale oo Hindi ah oo adopted wax la dhaho waalidkiis waa gaalo cadaan waaye wiilkana waa Hindi wiligaas ma maqasheen maadaama ay ilmo badan dhali karin dibaddaas way baxaan dalal oo faqri ah ay aadaan ilmo ka soo wataan si u korsadaan ayaga kooda amal wiilkaas leena la degnay wuu ekayne dad kasta Hindi igu jireen soo Hindi ali mareen jiray markii ay soo magaaladeen Soomaali ku soo badatay ay arkay war ninkan dadkiis waaye ba Soomaali waaye Soomaali badan magaaladii soo gashay anigan waxaa noqday maadaama jaal luqadii sii bartay iyo dhaqankood xoogaa waxaa u noqday dhalinyaradii cusub soo gala magaaladii inaa dhaqanka baro iyo dhaqanka oo gaaladii yaa luqadood inaa u fasaxo haddii wax u baahan yihiin inaa u sheego waxaan u baahan yahay beerley la degnay tuuladii dhan dad iska beerley ahaayeen maadaama saas ahayd dhulkaas ku soo koray dugsiga hoose dugsiga dhaxaad dugsiga sare ku soo dhigtay markii oo meeshaasna waxa lagu qaangaaraa 18 jir ma fahamtay 18 markaa gaaray ya go'aan gaaray ani dalkan Sweden ma rabibo inaad degnaado ma fahamtay anigoo yar 12 12 ilaa 18 jir kubadda ciyaari jiray kooxa u ciyaari jiray tuuladii yar oo kooxdii marka anaka iyo ajnabiga ku soo biirnay kooxdii dhana kor u kacday 98 waxaa jirtay dhalinyaro badan oo Sweden ajnabi ah aniga wiil Zlatan Ibrahimovic la dhaho oo dibadda aado kubadda ku soo ciyaaray kubaddi waa aaday way soo toobi weysay qalina maray jilibkii ka jabay soo waa aad hooya soo guurtay waxay u soo guurtay Ingiriiski waxaa la dhahaa hadaa kubad ciyaari karin maxaa fursad ku ah shaqo waxbarasho doortay awoowe Cali Tinay aan noolahay oo hooyo dhashay aad iyo aad u taageeri jiray waxbarashadeedii Dubai oo jooga saxafiis oo xamar dagaal ka socday xafiiskii uu raray Dubai oo ka dhigtay Dubai oo nalal ka samaystay ma sha Allah oo asagana dibadda asagoo joogo ibiili jiray free ma ahayn waxbarashada dibadda free loo malaya deena la galaaba dhalinyaro badan deen gasho say wax u bartaan so waa soo bartay marka waxbarashadii dhameeyay shaqo bilaabay shaqada ugu horeysa bilaabay waxay ahayd wax la dhaho sales and marketing waxa waaye suuq gelis iyo marketing ma fahamtay iibin iyo suuq gelis ha shaqada ugu horeysay waxa iska hel laakiin alxamdulillah wax baran experience wax badan ka soo bartay waxay ahayd sida loola dhaqmo shirkadaha waaweyn sida oo IT managerada maamulka IT-ga sida loola hadlo sida loo soo bandhigo wixii aan u wado ani waxa gadi jiray software wax la dhaho oo shirkad Oracle la dhaho Oracle waxay isticmaashaa shirkadaha waaweyn caalamiga Microsoft iyo Oracle adduunka haysto iyo shirkad German anigoo shaqadaas adduunka dibadda waa ka see waa la iska shaqaystaa waa la iska nool yahay ma fahamtay reer iyo Soomaaliya war ma ka hayani yani hadda waxa focus ah lacag aruurso shaqayso nolol samayso ma fahamtay guur iyo waxaas ma laga fikiro runta ku sheego ilaa 30 jir gaartid ma fahamtay maadaama hadda guur rabtid waa inay wax ku aruursadaan guri leedahay gaari leedahay shaqo leedahay
ma fahamtay intaa waxaas dhan isku keenaysid waqtiga qaadataa ma fahamtay muddo Soomaaliya kala maahan qofku waa iska guursadaa wuu iska guursadaa inta aniga li imaada war caliyo garabna si guura socdo war adiga guura rabtaaye ma adiga dhan istoosisid isharaxid kadib guur isku diyaaray so guur ani ma soo marin ilaa dalka ka imaaday ani waxaan ku mashquulsanahay waxay dhahaan the rat race ma fahamtay shaqayso lacag aruuri maadaama haddaa shaqaysatid xataa wixii adi shaqaysatay dowladdaas kaa goosanaysaa maadaama ay ku ogolyihiin intaas inaad ku noolaatid anigoo shaqaynaya nolosha ingiriiska igu adkaatay ninyo nolosha ingiriiskii markay igu adkaatay ingiriiska ii fududeeyaba waxay dhaheen anaka dadka Yurub ka imaada ma rabno inaa ka tirsanaana Yurub midowga Yurub ma rabno way ka goosteen midowga Yurub ay ka baxeen midowga Yurub markay ka baxeen saas ma sheekadeen anin waa guuri Sweden u laabtay markay ka baxeen laakiin hadda dhow ahayd aan hadda dhow baxay 2015 ka tagtay ingiriiska Sweden u laabtay waxa arkay dalkii aad degnaan jiray ma ahayn dal kale ma jooga isdhooya qaali noqotay iskoolihii meeshii la aadi jiray la xiray dhalinyaradii Soomaalidii kubadda bari jiray marka adi weynaatid ilmaha yar yar kubadda bare ma fahamtay wiilasha kubadda bari jiray gangsteriin laadari kooxyaal samaysteenbo waa soo noqday waa sabriye ma naanaysa igu jireen wiyaalka xaafadda aysa igu jireen big ace waxa way turubka kaarka ugu sareeyo so big ace oh maxay ku bixiyeen marka waxay ugu bixiyeen because kaar ciyaari jiray markasta ay arki jireen ingiriiskana waa ka imaaday dhinacood waxa ka ahay maasha Allah wiil oo nolol soo arkay dibadda ku soo wareey soo laabtay soo ciyaalka xaafadda isla joognay marka u guuri Sweden alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale shaqo isla markii helay shaqo waxa helay maadaama aniga soo shaqaystay oo jahad experience yeeshtay iyo luqado badan ku soo shaqeeyay skillskeegi iyo wixii soo bartay way u baahnaayeen shirkadii Oracle oo Sweden ku taali ay ugu raadeen noo soo shaqeey waa u shaqeeyay waa isfahmi weyn waa ka tagay shirkadii weyn oo hormuud camal ah dalka Sweden shaqo la bilaabay shaqada markaa bilaabay noloshii Sweden la qabsaday 2018 ya waxa dhacday shaqo la'aan dhacday dalkii dhan dad badan shirkada laga buriyay dhaqaaliya hoos aaday waxa la sii fursad cali say kula taada Soomaali u laabano ana ka dhan Soomaali maxaa iyaala ku dhahay Soomaali maxaa ka doona Soomaali al-shabaab la isugoysay iyo burcad badeedkan maxaa kale iyaalo waxay ku cali taariikha ku taalo aabaha nin caano ahay Soomaaliya dhalinyartiin amal way u baahan tahay anina sanadka ugu dambeeyay shaqo la'aan ahay askara war iska sii dalxiis laakiin dalxiis ma noqonin waxay noqotay life changing sanadka gormaha asoo 2020 waayahay marka soo laabatay marka oo wadankii timid muddo dheer ka maqnay 25 sano ka badan dhibaatooyinka la kulantay maxaa kamid ahaa abdi wallahi saaxiibaan ahay dhowr sano intii isla joognaa dhibaatooyinka waa kula sheegtay dhibaatooyinka dhan ma ku hadli karna laakiin kuwa ugu waaweyn la kulmay ka hadli karna iyo ujeedadeedii dalkan horumar waxay u gaari weysay xataa hooyo isoo raacday iyo habaryartay ninka qabay Dr. Khaliif Bilal asagana waa nin dhakhtar weyn oo dalkan shaqo badan ka qabtay dhinaca caafimaadka waa soo baxnay dalka Soomaaliya imaaday xamara ku degnay waxa isla war bisinka ya intii keenay isdoo maali celiyo isla markii hadda hali celiyo isla markii waxa dhahaa la celiyo marka ka soo baxnay airportkii maxaa aragtay marka waxa ku kala koo shahaadkii bilawday shahaad dibadda ma lagu shahaado hadii lagu shahaado si sharafa lagu shahaado ma fahantay meeshaas xooga lagu shahaadaabo airportkii ku bilaabatay ilaa maantana way socotaa ilaa maantana way socotaa laakiin waa la qabsaday taas
xabadihii tiro badnaay meel kasto xurinimo meel ah hadda xurinimo hadda waa la kala saari karaa meeshan amnigii xurinimadeed ma jirto maadaama shacab camal caadi u lugeyn kari meel kasta lagu istaajinayo lagu baaraayo gaari haddaa wadatid warininyo baad ka socoto lagu baaraayo amniga wuu fiican yahay ya laakiin amniga haddii oo meel kasta amni lagaa saaro oo noloshaadii dhan waxay noqonaysaa nolol oo xabsi camal aad dareemay adiga dhan maadaama meel video camera xataa ma duuban kartid ma fahamtay markaa soo gashay isla markiiba waa kaamirada dami wax kasta tirtir saas haddii ahayd waxaa la geeyay hoteelkii markaa imaada xoogaa iska naso markay joogii degtay bannaanka u baxay oo buuq waxaa la keenayna meesha ugu darneed ya hoteelkii la dejiyeyba hoteelka ugu dadkan kooxaaneeto argagixisada nagu hayso hoteelka ugu tiro badnaa la qarxiye waaye xamar ka waran